Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan. Waa duhurnimo sabti ah bisha Novembarna ay tahay 27 sanada 2021. Qodobada aad barnaamijkeena maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka oo war ka soo saaray dagaalka Itoobiya. Wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya xilli ciidamada dawladdu ay sheeganayaan inay deegaano ka qabsadeen kooxda TPLF-ta. Madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo dagaal adagi uu ka dhex qarxay. beesha caalamka oo war ka soo saartay doorashada ka socota dalka Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. Soo dhawaada. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in dalkiisu uu aad uga walacsan yahay dagaalka faraha ka sii baxaya ee ka taagan waddanka Itoobiya. Waxa uu dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay inay degdeg u joojiyaan colaadda. Blinken ayaa sheegay inuu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kala hadlay xaaladda ka taagan Itoobiya, isla markaana uu la wadaagay walaaca uu Mareykanku ka qabo dagaalka oo uu sheegay inuu khatar ku yahay xasilloonida gobolka oo dhan. Waxaan dhammaan dhinacyada dagaalamaya ugu baaqaynaa inay tallaabooyin muhiim ah u qaadaan dhanka nabadda si loo ilaaliyo midnimada iyo madax-bannaanida dhuleed ee Itoobiya, ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray xoghaye Blinken. Dagaalka ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya xilli uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku sugan yahay furimaha hore ee dagaalka, sida ka muuqatay muuqaal Jimcihii ay baahisay warbaahinta dowladda. Abiy oo hadal kooban ka jeediyay aag aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in ciidamadiisu ay guulo muhiim ah ka gaadheen dagaalka. Cadowgu ma laha awood uu nagu horjoogsado ama nagula tartamo, waana ka guuleysan doonaa, ayuu yidhi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxa uu intaasi raaciyay in militariga Itoobiya ay gacanta ku dhigeen magaalada Gaza Gita ayna ku dhow yihiin degmooyinka Jifra iyo Burka ee gobolka Canfarta oo soohdin la leh gobolka Tigrayga. Guud ahaanba dagaalka Itoobiya ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya isla markaana sii salballaadhsanaya, iyadoo furimaha cusub ee dagaalku ay sii badanayaan. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ahaa korneyl ciidan oo ka tirsanaa waddankaasi Itoobiya ayaa haatan u muuqda inuu u xubsiibtay inuu dib ugu laabto furimaha dagaalka, isla markaana uu hogaamiyo ciidamada dalkiisa. Waxaana uu sheegay inaanu ka soo baxaynin ilaa iyo ay ka gaadhayaan guulaha ay doonayaan oo ah in meesha laga saaro kooxdan TPLF-ta ay lafta dhuunta gashay ku noqotay dowladda dalka Itoobiya. Iyadoo dowladda dalka Itoobiya ay horey walaac uga muujisay dhexdhexaadnimada waddanka Mareykanka iyo guud ahaanba wadamada reer galbeedka, ayaa haddana waxa ay wadaan waanwaano ay doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan colaadda ka socota dalka Itoobiya. Waddanka Mareykanka iyo wadamada Ingiriiska ayaa u muuqda inay ku dhex jiraan kooxaha ku dagaalamaya waddanka Itoobiya ee dowladda dalkaasi Itoobiya iyo weliba kooxda TPLF-ta. Safiirka dalka Ingiriiska u fadhiya waddanka Itoobiya ayaa shalay gaadhay magaalada Makale, waxaana la sheegay inuu halkaasi kula kulmay madaxa ugu sarreeya ee kooxda TPLF-ta Debretsion Gebremichael. Waxaana la soo sheegayaa inay ka wada hadleen dadaalada dhexdhexaadinada ay wadaan wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo weliba wadamada gobolka. Waxaana ay sheegtay in TPLF-tu ay dhankeeda diyaar u tahay in la wada hadlo, isla markaana miiska la isugu yimaado, balse dowladda Itoobiya ay doonayso inay dagaalka halkeedii ka sii wado. Haatanna aan eegno furimaha hore ee dagaalka iyo meelaha ay ku kala sugan yihiin ciidamada dowladda Itoobiya iyo weliba kooxaha jabhadaha. Dowladda dalka Itoobiya ayaa sheeganaysa guulo ballaadhan oo ay ka gaadhay dagaaladii dhacay maalmihii la soo dhaafay, waxaanay dowladdu sheegtay inay kula wareegtay magaalooyin cusub oo magaalooyinkaasi oo ay sheegtay inay u badan yihiin gobolka Canfarta oo uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo dagaalada toos u hogaaminaya. Waxaana ay sheegeen inay ku dhow yihiin xuduudda uu gobolka Canfartu la leeyahay gobolka kale ee Tigrayga. Waxaana ay sheegeen inay la wareegeen magaalada muhiimka ah ee Gaza Gita. Magaaladaasi oo ku taalla gobolka Canfarta isla markaana xuduud dhow la leh gobolka Tigrayga ayay sheegeen inay la wareegeen, isla markaana uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya shalay muuqaal laga duubay meel aan ka fogeyn magaaladaasi. Inkastoo aan la shaacinin goobta dhabta ah ee uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha, ayaa waxaa la filayaa inaanay ka fogeyn magaaladan ay qabsashadeeda sheegteen dowladda dalka Itoobiya iyo xulafadooda. Aagga dagaal ee ugu culus ay isku farasaarayaan kooxaha jabhadaha iyo dowladda dalka Itoobiya ayaa noqday baryahan dambe gobolka Canfarta, iyadoo halkaasi ay weerar culus ka qaadayaan kooxda dowladda Itoobiya
iyo waliba ciidamada dowladda Itoobiya halkaasi oo ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha isku bedelay korneelka ciidan ee haatan hogaaminaya dagaalada dalkaasi Abiy Ahmed. balse dagaalo aan badnayn oo ka socday shalay ilaa iyo xalay magaalada Lalibela iyo magaalada kale ee Shawa Robit ayaa la sheegayaa inaanay wax horumar ah ka sameynin ciidamada dowladda Itoobiya, iyadoo halkaasi ay wali ku sugan yihiin kooxda TPLF-ta oo goor hore la wareegtay magaalooyinka Lalibela iyo waliba Shawa Robit. balse dhanka magaalada Shawa Robit ayaa la sheegayaa in ciidamada dowladdu ay gudaha ugu jiraan magaalada Shawa Robit, balse aanay guud ahaan magaalada si gacanta ku wada haynin. inkastoo wali dagaalkuna uu sii xoogeysanayo, colaaduna ay cirka isku sii shareerayso, dowladda dalka Itoobiya ayaa muujinaysa kalsooni ay ka qabto goobaha hore ee dagaalka, waxaana halkaasi la filayaa maalmahan soo socda in dowladda dalka Itoobiya ay dhaqaaqiyo weyn ka samayso goobaha hore ee dagaalka. balse awoodda ciidan ee kooxda difaaca gashay ee TPLF-ta iyo waliba kooxda kale ee Oromada ee Ola ayaan la dheelsan karinin, iyagoo horey ula wareegay magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ku yaala, isla markaana khalkhal amni ka abuuray magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya, kuna kalifay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu soo galo goobaha hore ee dagaalka. haatan aan eegno dagaal adag oo la sheegay inuu ka dhex qarxay wadamada Ingiriiska iyo waliba Faransiiska. madaxda labadaasi wadan ayaa la sheegayaa inay soo kala dhexgalay madmadow xoogan, isla markaana madaxweynaha Faransiisku uu aad uga xanaaqay waraaq uga timid ra'iisul wasaare Boris Johnson. warqadaas oo la sheegay inay ka hadlaysay dadka tahriibayaasha iyo sida loola dagaalami karo dadka doomaha jilicsan ku tahriibaya. xukuumadda Paris oo aad u careysan ayaa sheegtay inay ka carootay laba wajiilanimada UK. dowladda Faransiiska ayaa ku adkeysanaysa in ra'iisul wasaaraha UK uu wada hadallo gaar ah oo dhanka telefoonka ama foolka fool ah la yeeshay madaxweyne Macron, kadib ay ereyadiisa si khaldan u dhigeen xafiiskiisa markii uu wada hadalladaasi saxaafadda u soo bandhigay. kooxda xafiiska ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku adkeysanaya in arrintaasi ay dhacday isbuucan kadib markii labada hogaamiye ay wada hadleen markii kanaalka u dhaxeeya labadani wadan ay ku dhinteen ugu yaraan 27 qof oo muhaajiriin ah. tani maaha markii ugu horeysay ee xukuumadda Paris ay Johnson ku eedeysay laba wajiilanimo. bilihii la soo dhaafay eedeymahaasi oo xafiiska ra'iisul wasaare Boris Johnson uu beeniyay. dowladda UK waxay ku adkeysanaysaa in waraaqda ra'iisul wasaaraha uu u diray madaxweynaha Faransiiska fiidnimadii Khamiista ay ahayd mid dhab ah oo daacadnimo ku dheehan tahay, isla markaana loola jeeday wanaag ee aan loola jeedin dagaal iyo dhibaato midna. balse madaxweyne Macron ayaa ka xanaaqay in warqadaasi uu shaaciyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain oo uu dadka oo dhan ay ogaadeen. waxa uu muuqday mid aad u xanaaqay, wuxuuna jimcihii shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Rome ku sheegay in waxyaabaha ay madaxdu ka wada hadasho aysan noqon waxyaabo Twitter-ka lagu soo wadaago. annagu ma nihin dadka sirta dusiya, ayuu yidhi Macron. shakiga Faransiiska ayaa ah in warqadani oo ay u arkaan inay si weyn mas'uuliyadda badqabka kanaalkaasi ay u saarayso Faransiiska. Faransiiska ayaa aaminsan in Johnson uu hadda ku jiro xaalad aysan jeclayn taageerayaashiisa, isagoo ballan qaaday in ka bixitaanka Britain ay ka baxday midowga Yurub ay la micno tahay dib ula soo noqoshada xukunka biyaha iyo xuduudaha dalka UK. dowladda UK ayaa ku adkeysanaysa inay si niyad sami ah warqadani loogu diray madaxweynaha Faransiiska. Paris ayaa sheegtay inay arrimahan xasaasiga ahi ee sida socdaalka gaar ahaan marinka u dhaxeeya Faransiiska iyo UK ay tahay in si taxadar ah loo maareeyo, si qarsoodi ahna ay warbaahintu u ogaanin. xogayaha arrimaha dibadda ee UK Britel Battle iyo dhigiisa Faransiiska ayaa kales kulan ku yeelan doona dhamaadka toddobaadkan. Faransiiska waxa uu arrintani ka leeyahay qorshe siyaasadeed oo gaar ah oo ku wajahan gudaha dalkiisa, waxaana Macron ku soo socda doorasho madaxtinimo oo aad u adag. marka la eego cadaadiska siyaasadeed ee uga imanaya gudaha dalkiisa, waxa uu dabcan maanka ku hayaa inuu is adkeeyo, muujiyana go'aan adag iyo wadaniyad dhab ah. kooxda ololaha Macron ayaa arrintani kala dhaxaysay UK si toos ah uga hadlaya si ay ugu yaraan u soo jiitaan qulubta dadka codbixiyaasha ahi ee Faransiiska. haddii wada hadallada gaarka ah ee u dhaxeeya Faransiiska iyo Britain ay sii socdaan, dulqaad xumida labada dhinac ma noqon doonto mid miisaan weyn ku yeelata xiisadda labada dhinac. saraakiisha ammaanka iyo saraakiil kale oo UK ah ayaa jimcihii loo diray magaalada Paris si ay wala hadlaan Faransiiska ilaalinta kanaalkaasi u dhaxeeya labadani wadan.
waxayna dowladda UK sheegaysaa in xataa haddii aanay xoghayaha arrimaha gudaha ee Britain u suurtagelin inuu taga kulankaasi ay imaan doonaan axadda saraakiil sare oo Britain ka socda. Haatanna dhanka Soomaaliya aan eegne war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen dalalka saaxiibada Soomaaliya ayay ku baaqeen in doorashada golaha shacabka ay noqoto mid loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo. Qoraalka ayaa lagu sheegay in doorashadu ay noqoto mid ay aqbali karaan dhammaan daneeyayaasha doorashada iyo shacabka Soomaaliyeed iyadoo la tix raacayo jadwalka daabacan ee doorashada. war-saxaafadeedka beesha caalamka ayaa lagu yiri waxaan ku baaqaynaa in daahfurnaan buuxda loo sameeyo dhammaan geedi socodka la xiriira doorashada oo ay ku jiraan magacaabista guddiga soo xulista ergada, diiwaangelinta musharaxiinta, kuraas u xirista haweenka musharaxiinta ah si loogu hoggaansamo qoondada 30% ee lagu heshiiyey, iyo maareynta lacagaha musharaxiinta. waxaanu sidoo kale ugu baaqaynaa guddiyada doorashada inay fududeeyaan korjoogteynta dhammaan howlaha goobaha codbixinta. beesha caalamka waxa kale oo ay ku baaqday in la tixgeliyo xaq ay musharaxiintu u leeyihiin inay isku soo taagaan doorashada iyadoo loo marayo jawi ku dhisan tartan dhab ah oo xalaal ah. warkan ka soo baxay bulshada caalamka ee sida dhow ula socota xaaladda Soomaaliya ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen cabashooyin dhowr ah oo ku saabsan hanaanka doorashada, gaar ahaan habka xulista ergooyinka iyo musharaxiinta doorashada aqalka hoose. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socdo intaas waxaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay aan idinka haynay guud ahaanba caalamka. inta ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.